Kani waa Nafiis Yacquub. Waa wiil ka soo muuqday isaga oo xabsiga dhexdiisa quraan ku akhriyaya. Nafiis Yacquub waa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Thailand oo si sharci darro ah u soo galay Malaysia una yimi ujeedo shaqo. Waxa uu ku dhuumanayay meelo qarsoon isaga oo ka baqaya in la qabto. Haddaba habeenada ka mid ah ayuu u soo baxay cunto si uu u soo iibsado. Intii uu jidka ku sii socday ama uu jidka marayay ayaa nin boolis ahi oo reer Malaysia ahi joojiyay waxaana uu weydiiyay aqoonsigiisii. Nafiis waxa uu sheegay in aanu haysan wax aqoonsi ah. Dabadeed ninkii booliska ahaa waa uu kaxeeyay waxaana uu geeyay xabsiga. Nafiis waxa uu qirtay in uu Malaysia ku soo galay sifo sharci darro ah, kadibna waxaa loo diray xabsiga si loo hayo ilaa iyo inta dib loogu celinayo waddankiisii. Xabsiga lagu xiray waxa uu ahaa xabsi aad u kulul, mana ayna oolin wax gogol ah. Dabadeed waxa uu Nafiis la baxay shaarkiisii kuna fadhiistay, kadibna intii uu cuntada sugayay ayaa uu akhriyay quraan codkiisu aad u macaan yahay. Nin boolis ah oo xilligaas ku qoraa ilaalada ayaa aad ula cajabay codka uu ku akhriyay Nafiis quraanka kariimka ah. Dabadeedna muuqaal ayuu ka duubay waxaana uu ku baahiyay internetka. Muuqaalkiina waxa uu noqday mid aad u faafa. Nafiis Yacquubna waxa uu noqday caan, waxaana booliska laga dalbaday inay xabsiga ka sii daayaan, waxaana loo magacaabay imaam masjid ku yaala magaalada Malaysia. Waxa uu ku guuleystay abaalmarino dhowr ah, waxaana uu kasbaday kumanaan kun oo dollar. Maantana waxa uu ka mid yahay imaamyada caanka ah ee Malaysia. Quraanku dadka kor ayuu u qaadaa. Bal aynu isla eegno xoogaa ka mid ah quraankii codka macaan ee uu akhriyay Nafiis Yacquub. xigeenay Imaam Mufti waxay soo jeedinayaan anigoo Cabdifataax Maxamed Yuusuf. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe si aad ula socoto barnaamijyada noocan oo kale ah.